حافظت حق العيد ودونت عليكم asxaabta igu xidhan wadaniisa official waan salaamaya soo dhawaadaan ilaahay waxa labadeeda garab fadhiya mataani Djibouti waxa leeyahay Xasan iyo Xuseen soo dhawaada walaalayaal aad baad maadsan tahay wadaniisa channelkaaga horta markii labaad waxaan ka soo muuqanayno warda saxaabi sidaan nagu ogeyn horta maad sameyn subscribe ti like ti share ta inta sidaan qurux badan ma meesha dhex fadhida soo dhaweeya oo u share gareeya oo like ta kay loobina Xasan maxaad ku darsanaysaa أنا waxaan ku darsanaya inta quruxda badan la waxay uusha isku galisay waa dartii sax hal soo dhaweeyo mar waliba laga shaqeeyo raali gelinteeda si iyadoo tartiimo ugu noqoto like share comment inta baa laga soo bixiyo sax waxaan leeyahay anigu aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maadaama aan janankeyga maanta aan markii labada ay tahay sax farxad iyo bogaadin bay tahay sax hal soo dhawaado sax aad baad maadsantaana hadalka boobaya sax asxaabay horta anagu baa iswareysan jirnay maanta wadaniisa wareysanay waa si wanaagsan ma sha Allah wadaniisa soo dhawow wadaniisa waxaan ka wareysanaynaa farxad iyo murugo channelku maadaama uu soo socdo farxadda lagu horeysiyaa wadaniisa muqdisho wada joognaa bal wixii kuugu farxadda badnaa la kulantay farxad wadaniisa walaal qaale inaad nooga warantid baan rabnaa aniga farxadda nagu horeysay murugaduna nagu dambayso aniga maalintii kuugu farxadda badan la kulanta adigoo qoslay oo farxay nooga sheeko walaal qaale maalintii igu markasta maalin kastaan horta iska faraxsanahay ma ogtahay maalintii laakiin aad kuugu farxadda badan maalin khaas ii ahoo maalin aan raahdo waa maanta maalintii igu farxadda badnayd bay ma soo marin ma ogtahay laakiin ayuu mar kasto aan soo kaco bal mid ka xasuus ba farxadda waa asxaabta la wadaag mid niyadaada ku jirta ciidda ma farxda ciidda ha maalmaha ciidda waa farxad badnayd ma marka la waaweynaado mise marka la yareeyaa imika intaad weyn tahay intaan weynahay ciid kasto timaadaaba muslim baan hoon ku farxaa sax ma fahantay ciid iiga duwaneed ciidaha ma jirto ma garanaysaa marka de farxad khaas ma ba garanaysaa hortoodana midaan ku weydiiyo maadaama dad u sheekada haysan haddana ka dhex galo bal waxaad ii sheegtaa horta in kastoo maalin ciida ku jirno waa garta inaan ciid markaan ciida ku jirnay inaan xusnaa fiican marka maadaama anagu martinahay haddana marti waxaan noqonay wadan wareysatay adigaan kaa wareysanaa Xuseen ka waran adoo xaqal ciid si dhib leh ku helay misana ma ka hadlo horta aad baad maadsantahay waxbaad i xasuusisay waayo ciidan wax ku xasuusan sax maalintii ugu yaabka badneed aan u arkay waxay ahayd walibana ciid ay ahayd lacag Djibouti baan joogay markaas lacag 15,000 oo faran halkaad waxay noqonaysaa $80 ilaa $60 bay noqonaysaa iyaan haysto wax lacag kadib intii aan haystaanoo socda oo wallahi ku qanacsanayn online inta maanta ay kugu yarta ma lagu biiray marka xaafadda aan leeyahay sax iyay intiina iga lunto walay haba kugu dhacay way halooday ano intiiba sulugsana marka intiina haloo maroor dilaac kalaan siisaa had sameysay waxa dhacdanoo yaaban oo madaxa haysto oo wallahi fikiray oo iska socda iyaan arkay lacag $100 haye oo dabayshu intay soo qaaday lugtayda hoos keentay ma sha Allah ilaahay ba xaq ciid ma fahanti ilaahay baa ku soo $40 ma igu biir halkaas $100 hadda seedo qaadan bil aadan buu ka soo dhacay daas oo daran hareerahan iska ilaahu lugta kool ku marin ma lahayd ku qabatay mar waxaan islaa lugta bil ilaahay lugta mu gacan ka dhig mu lugta baashi mariyo kala bir sida lugtaada haday gacan noqoto soo yar qaadan marna waxaan intaan hareeraha eegay saacad iyaan yar lamana foorsan kartid qof weyn baa yaa nin waxa ka yar dhaceen baa iska yar dhigo waa yar foorsan haddana hareeraha iska yar dab inaan qaado iyo inaan qaadin baan kala garan waayay jeebada hidoo gashaa waxa dhacday mar waliba haddana maskaxdayda waxa ku soo dhacaysa qofkii iska lahaa baa ku daba jooga Allah hadee been ma qofku raadinay ha dhar iyo xaan iibsaday inaan iibsadaan rabaa dadkii baan iska eegay normal go'an keen $100 waa ka yar dhaqaaq haddana meesha haddana in yar markaan joogsado haddana hareeraha yar eegay inna lil'ab sida adduunka soco haddana ila weligii aanu taynay kuma dhicin
haddana ka soco haye markaan magaaladii suuqii ka baxay ha bannaanka uga baxay Ha. yaan sidii maxaa ku kadiyey afartii door ninkan uga daray uu kaaga dara fartankii maxaa doolar ku kadiyadoo ku dhibanaysa haye meel baan ku soo noqday alaabtaydii wixii baan iibsaday alaabtii baan haddana iska yar qarsaday toos baan u soo socday gurigii baan midaano ninkayga alaab badan wata lacagtii lay siiyey iyo waxaan wataa is noqon weyday haye markaasay iga yidhi xuseen oo kaalay hooyaa iga ha tiri xuseen oo lacagtaan ku sii hooyay intan way ka yarayday ha ma suuqii baad gacanta soo martay waxbaa lagaaga daray weliyin waxaan xaaraanta iska celinay haye ya haye markaasaan ku yidhi hooy weligay waxba gacanta ma marini laakiin maanta si farsamaysan baan waxu helaan haye maxay tahay bay tiri lacag baan dhulka ka helaan haye markaasay tiri lacagtaad heshay waad baafisid haye oo tidaahay lacagtaa yaale amba taydii way lunto amaan baafin ma jira oo aniga taydaba ayaa ii baafiyeen sax haddii tayda la baafin lahaa kana waan baafin lahaa been ma arsaaqad iska soo socoto lugtayda soo gashay ayay hay waan iska qarsaday sidaa baan ku ciiday sax ee hooyo duceey haye anu ciidii sidaas aan ku ciiday farxad iyo murugo labadaba aan ku ciiday ilaahay ba marka hore waad murugaysan marka dambena waad faraxada may wala labadaba bada ilaahay baa kara ma sha Allah Allah. tabaaraka sax waa kaas ana haddana su'aal ma weydiinaya haye hodanay Hmm. farxad baad ka sheekaysay Hmm. bal maxaa ku aad la kulanto murugaa intii ama halkan aad joogto ama meel Soomaaliya kale aad baad joogtid, joogtid ama Kenya aad joogtid wixii aad la kulantay bal murugaa horta maasha Allah hodaniisa inkastoo qof ay dal mara tahay adduunka meel kasta ay soo martay ma adduunka oo dhan u Soomaali ma taaysa ay ku sameeyeen maasha Allah hodan murugo ku soo martay nooga sheekay aniga murugadii ila ay soo martay ugu xumad waxay ahayd waan tahriibay fahmaysaa waxaan badda saarnaa 8 iyo 30 saacadood oo isku weer subhanallah hay kowdhe yaban baan tagay waan ka sii tahriibay sacuudigaan tagay sacuudiga markaa tagto dhib badan baad la kulmaysaa moogtahay wallaahi qofka markaanad garanayn meesha maaragta waa dhib badanta adduunka meel kasta soo martay haddana markaanad wixii ay dadkaas ku hadlayeen aanad fahmaynin way kasii xunta sacuudigaan tegey qadaamad baan ka noqday fahmaysaa waxaan sacuudiga joogaba habeenkii dambe ayaan shaqo tegey sax shaqadii aan tegey baa waxa ugu la yaabka badnaayee aan ka murugoodan ka xanuunsaday sacuudiga uga soo noqdo waxay ahayd reerkan la joogay u shaqaynayay gabadh baa u joogtay weyn oo ay dhaleen gabadhaasi marka waxay samayn jirtay gabadh aad u kibir badan oo ajaanibka nacab ay ahayd oo yacni cunsuriyad camal lagu tilmaami karo moogtaa marka maalinta dambe iigu soo gashay jikoon oo ku jira oo saan dayax ma leed waxay igu tiri dayax ma leedihiin roob ma idiin soo daa qorax ma ka soo baxdaa waddankiina beer ma leedihiin webiye ma leedihiin aduu bad ma leedihiin cindig baxar aduu kelmadday weydiisaba waxaan dhahdaa maya qaybta madaya haa saanta ii eegtay bay tiri waa shuucaanka iyo dhibaatada iyo tahriibta iyo silica iyo darxumada yacniga waxaasoo dhan waxaa idinku wacan waddan raqiis ah oo bahdilan oo baabahaad ka soo jeedaa macnaha soomaalidu waa dad aad u dhiban macnaa waddankooda waa saxare xuma haysataan aad baan uga xumahay gabdhihiina waa dhibaataysiin raggiina kadaalika waa ka xumaaday saraax waxaan uga xumaadayna waxay ahayd macnaha waddankaygii ma joogo naagtay bahdilaysaan waddankeeda jooga haddana gurigoodii baan ka shaqaale ka shaqaynay ma fahmaysaa marka waxay ku dhacday odaygii baa wuxuu igu yidhi odaygii baa u yeedhay markaasuu ku yidhi doqon baa tahay markaas yaa habla buu ku yidhi sitiri leesh markaasuu ku yidhi ma taqaanaa naagtan aad u faanayso markaasay tiri waa soomaaliyadda waddankooduna waa saxare macnaa dawlad ma haystaan waxba ma haystaan waa dad iska baahan oo dhibaataysan markaasuu ku yidhi soomaalidu waa dalka afrika ugu qanisan eeg hadda kelmadda odaygaa nuxurkiisa aan ka qaatay soomaalidu buu yidhi waa dadka afrika ugu qanisan laakiin waa dad bilaa maskaxa muxma laha fahmaysaa dadka qaarna qori baa lagu maamulaa buu yidhi dadna qaarna qalin iyaga qalinkaa lagu maamulaa ma fahmaysaa wuxuu yidhi soomaalidu 100% waa dad sunna ah waana dad isjecel gacanta iska shumiyaan kowdhe subaxii waxay dubtaan buu yidhi lxoox axmar ah lxoox yar racas cas bay dubtaan ma fahmaysaa
waana dad cunto dabiici boqol sano oo dambe bay uu yiri haddii dawlad badda Afrika ugu dheerbeelayeen adigu waxbuu tiriyo odayga adu Soomaalidu fahmay ha haddii buu yiri Muqdisho nabad ahaan lahayd ma joogay Sacuudi Arabia kuma noolaadeen habeen saas marka hodan caqabada gabadha kala kulantay waa ka xanaaqay marka gabadha odaygu wuxuu ku yiri marka raali gal yalla gulli asif u dhahay saacadaas raali gal gabadhaas صح way raali gelisay iga raalaha way igu tiri isla saacad baan shaqadii ka tagay isla saacad baan go'aansaday inaan Soomaaliya ugu soo noqdo ilaa haddana waa joogaa marka hodan caqabadaad gabadha kala kulantay maxaad u lan dadkan tahriibaya wadannada janibka tahriibay maxaad maanta ugu diray والله horta qof waxay dalaanad lahayn dareen ku joog moogta dalkaaga meel kaaga fiican ama sharaf ku leedahay ama karaamo ku leedahay ma jirto anu taas aan aaminsana hadda xamar waxaan joogaa 6 sano ha 2015 ka Sacuudi Arabia ka soo noqday sidii bad hargeysa waan tagaa ka soo noqday ku tala jirtaan meel kale oo maya wadankaaga iskaan waliba Muqdisho meelaan ka ahay waan salaamaya asxaabta intaasaan ku soo koobayna barnaamijkeena yar qurux badnaa hadana naga qeyrisiiyay Soomaali waxaan ilaahay tahriibka iyo rafaadka dhibaatada inta iska dhaaftiin dhulkiina maal gashada oo dhista oo qurxiya oo is-aamina dadkiina aamina walaalihiina aamina sidaasaan nagula talinayna sidaas iyo nabadgelyo